kulan ballaaran oo lagu muujinayo taageerada lixaad kale loo hayo musharaxa golaha wakiilada xisbiga talada dalka ayaa uga tartamaya gobolka Maroodijeex injineer Cabdikariin Maxamed Maxamed ayaa caawa lagu qabtay magaalada Hargeysa waxaana kulankaasi soo agaasimay oqaal kala duwan oo hormood u ahaa chiefka guud ee beesha Reexaad Cali iyo bahwadaagtooda waxaana uu go'reyn halkaasi ka hadlay isla markaasina sheegay inuu si buuxda u taageersan yahay chiefka guud ee beesha Reexaad Cali iyo bahwadaagtooda chief Caaqil Cabdisamed Ibrahim Khaliif isagoo tibaaxay inuu si weyn u taageersan yahay musharax injineer Cabdikariin Maxamed Maxamed aniga oo ah chief caaqilka guud ee beesha Reexaad iyo bahwadaagtooda aniga oo tixraacaya qoraal aan hore oo ahaa magacaabis guddi soo xusha musharaxiinta beesha Reexaad iyo bahwadaagtooda dood dheer iyo falaqeyn kadib waxa beesha Reexaad iyo bahwadaagtoodu waxay isku raaceen sidan hoos ku xusan qodobka koobaad in musharaxa beesha Reexaad iyo bahwadaagtoodu uu yahay injineer Cabdikariin Maxamed Maxamed Cumar qodobka labaad in beeshu soo saarto hal musharax kana soo saarto xisbil xaakimka kulmiye qodobka saddexaad in beesha Reexaad iyo bahwadaagtoodu isku raaceen in khilaafkii siyaasadeed uu sidaa ku dhammaaday gun iyo gabagabo waxaan gudoomiyay in aan fuliyo go'aanada beeshu isku raacday kuna hogaamiyo hirgelintooda dhammaan beelweynta Reexaad iyo bahwadaagtooda waxaan ku wargelinayaa in musharaxa kaliya ee la isku raacsan yahay uu yahay injineer Cabdikariin Maxamed Maxamed sidaa daraadeed waxaan ka codsanaynaa in ay gacan buuxda siiyaan musharaxa duca iyo arin iyo adduunbana ku taageeraan sidoo kale waxa iyaguna halkaasi hadalkiisa kala dambeeya caaqilo kala duwan kulli waxaanu halkan iskugu nimid wax wanaajin iyo taageero maadaama reerku isku raacay gebigiisu in injineerka maanta la doorto marka waxaan cadaynaynaa oo halkan u taaganahay caawa in warka Cabdikariin aan gaarsiino qof meel kale nooga wacdaan aan u dirin ayaanu ballan qaadanaa sida odayaashii hore ka dhawaajiyeen ayaan ku raacsanahay isku raacinta iyadan fadhiday inta maqariba isku raacsanahay taageerada musharax injineer Cabdikariin Maxamed Maxamed Cumar in uu yahay musharaxa kaliya ee maanta u taagan doorashada golaha wakiilada xisbiga kulmiye beesha Reexaad iyo hadii aanu nahay bahwadaagtoodaba sidaasaan isku raacsanahay waana muttafiq la isku waafaqay waxaan maanta iskugu nimid halkan taageerada injineer Cabdikariin Maxamed Maxamed Cumar oo ka sharaxan xisbul xaakimka kulmiye oo ay isku raaceen beelweynta Reexaad Cali iyo bahwadaagtoodu waxaan u sheegaynaa dhammaan beelweyntu meel kasta joogaan in dal iyo dibadba ninka la isku raacay waxaan halkan ka sheegayaa hawshii chief Caaqil Cabdisamed Maxamed Ibrahim Khaliif oo si fiican hawshii khilaafaadkii nooga soo gabagabeeyay waxaan sheegayaa inaanu taageero ballaaran u hayno beesha Reexaad Cali iyo bahwadaagteeduna ay hawshaasi sidaa ku qaataan maadaama chiefkii go'aamiyay waxaan leenahay hiil iyo hooba chief caaqilka waan la garab taaganahay arin iyo adduun inta baan ku raacsanahay intaasi kadib waxa hadalka qaatay isla markaasina ka mahad celiyay taageerada lixaad kale loo muujiyay injineer Cabdikariin Maxamed Maxamed marka hore Ilaahay mahadle mar labaadkana waxaan aad ugu mahadnaqayaa chief caaqilka odayaasha haldoorka ninqartiga sida qiimaha leh ee qaayaha leh sharafta leh runtii taageeradooda iyo garab istaagooda iyo kalsoonida weyn siiyay iyo dhammaan beesha salaadiinta oqaashooda dhalinyaradooda waxgaradkooda haldoorkooda hore ay taageeray imkana ay taageeray waxaan runtii aad iyo aad ugu mahadnaqayaa dhammaantood sida qiimaha leh kalsoonida leh sharafta leh ay ugu maamuseen iguna taageereen
anigoo insha allah beesha iyo deegaankaba iyo gobolkaba ugu matali doona doorashada golaha wakiilada Somaliland haddii ilaahay yiraahdo runtiina taageeradiina iyo garab istaagiinu waxay ii tahay kalsooni iyo inaan haddii ilaahay yiraahdo si kalsooni aan tartanka kaga qayb galo ilaahayna waxaan ka baranaynaa ilaahay nagu guuleeyo aniguna insha allah anigoo ka tartamaya xisbiga kulmiye inaan doorashada kaga qayb galo ugu dambeyn waxaan u mahadnaqayaa beesha sharafta leh ee runtii tartanka iyo wakiilatay dhammaantiina aad iyo aad baad mahadsantihiin guulid cali ibraahim kacse sab TV Gibli